1919 sideed iyo tobankii May waxay ahayd sanadii lagu dhawaaqay go'aansiyada Jamhuuriyadda Somaliland sanad guradii 27aad oo ku beegnay 18 bishii May 2018 ayaa loo soo raray 15 bishii May sabab la xiriira rabadaanta awgeed waxaana maanta xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera isugu soo baxay boqolaal dadweynaha oo ku leebisan calanka saddexda midab ee astaanta ah qaranka Somaliland dadweynaha ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ama bahal ku dhigyo ay ku muujinayaan go'aansiyada Jamhuuriyadda Somaliland intaasi kadib waxa ay isugu soo biyeeshogteen goob fagaaraha waxaana halkaasi kala hadlay مسؤولية gobolka Saaxil maamulka degmada Berbera iyo madax sare oo ka socota qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana u dhacday sida tan إذا كان الله حقه ساكا إذا كان فرفريين عقتي مريان إنت عقتها مريان عددين هاتشبه waxaan idin sheegayaa oo aan ku celinayaa waxaynu ku murmaynaa waxaynu nahay dad islaam ah waxaynu sameynaa tawxiidkii waxa calakeena ku xadhan laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah miyaa koonka looga baqaa miyaa looga yaryaraa ilaahay baynu tala saaranay ilaahay baad ogolaanay Somaliland inay jirto mar labaad waxaan leenahay cadawga Somaliland ha jabo maalinta 18 May waa maalin astaan u ah qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland waa maalintii midnimada waa maalintii ummadda waa maalintii dalkani uu ku dhawaaqay ama dib u soo noqday go'aansiyada Jamhuuriyadda Somaliland waa maalin looga duwan maalmaha kale ee caadiga ah ee nolosha wadno qodobka labaad aan doonayo maanta in halkan ka idhaahdo gobolka Sanaag runtii Sanaag wuxuu nagu noqday far dheeraatay anikeygu nagu dheeraaday waan waxa maanta laga bilaabo in samaan way dhamaatay nabadgelyo way dhamaatay uqaal way dhamaatay madax dhaqameed way dhamaaday maanta laga bilaabo dawladdu waxa amar ku qabtaa oo ciidanka lagu amray nin kasta oo nabadgelyada ka hor imanaya in wax laga qabto waxaan markaa u jeedinayaa gobolka Sanaag guud ahaan iyo Somalilandba hay naga reeraynina runtii alxamdulillah ma hadday maanta loo tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan nagala soo qayb galno 18 May oo ah maalin aad iyo aad u qiimo badan qarannimada Somaliland oo maalinta aynu la soo noqonay xorriyadeena walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bay niga mahad celinaa iyadoo aad ku jirtaan xilli kulayle oo aad ka duwantiin gobolada dalka inaad gobolka Saaxil noqdo gobolka isku soo baxa qiimaha ka sameeyay oo aan argay maamulahan gobol ahaan iyo meel mudugmada inta badan iyo dadada sameeyeen aad noqotaan gobolada Somaliland gobolka ugu horeeya Maxamed Cali Nuur telefishinka caalamiga Somali News TV xarunta gobolka Saaxil magaalada Berbera degmooyinka kala duwan ee hoos yimaada gobolka Saaxil maraan khadka teleefanka kula xidhiidheen waxa la soo sheegay in sidii ugu ballaaneed loogu xusay guud ahaanba gobolka Saaxil 18 May waa Abdirashiid Mubaarak Cabdi Abdirashiid Sul telefishinka caalamiga Somali Cable Berbera